السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما شاء الله إلهي waan ku xamdinaynaa mar walba. nicam fara badan buu ilaahay dusheena uu dhigay. nicamta ilaahayna siiyey nicmada ugu weyni waa alhidaaya, waa hanuunka weeyaan. in ilaahay ku hanuuniyo oo dariiqa xaqa ilaahay uu ku mariyo oo qof muslima oo quman oo toosan ilaahay uu kaa dhigo. nicamta adduunka dusheeda inta la joogo ilaahay uu bixiyo waa nicmada ugu weyn weeyaan. inay nicmadaasi nicamta ugu weyn tahayna waxaa caddaynaysa salaada markaan tukanayno, keena faqiirka, keena qaniga, keena lab iyo keena dhidig, keena madaxa iyo keena mijaha. su-aasha keliya ee salaada dhexdeeda qofka loo ogol yahay ilaahay inuu ku weydiisto waa su-aal weliba ku soo aroortay suuradda faatixada dhexdeeda. suuradda faatixaduna waxa weeyaan waa ruknu min arkaani الsalaa, oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa: laa salaata liman lam yaqra' biummi اlqur'aan. suuraddaas suuratu lfaatixa qofka aanan akhrisan buu nebigu yihi salaad ma leh, oo salaad uma ahaanin. salaadaas markaa suuraddaasi iyada magaceega dhan baaba salaaya. su-aasha keliya ee ku soo aroortay waxa weeyaan markaan suuradda aan akhrisanayno waa ihdina asiraata almustaqiim. ilaahu dariiqa mustaqiimkaaga ilaahu nagu toosiyowna mari. taasaa markaa caddaynaysa in shayga ugu qiimo badan ee ilaahay bini aadanka adduunka dusheeda uu ku siiyey inay tahay alhidaaya. hidaayaduna wax kala maahayn waxa weeyaan waa hanuun, oo ilaahay casa wajalla ayaa milkiyo oo ilaahay baa haya hanuunkaas. qofka ilaahay khayr uu la rabaa ilaahay nuurkaana qalbigiisa uu yeelaa. hanuunkaa ilaahay baa bixiya. xataa malaa'igtu ma bixin karto, nebiyaduna ma bixin karaan. oo nebi haddii uu milkiyey hidaayaduu nebi bixinayo, nebi nuux calayhi salaam inankiisa iyo xaaskiisa ayuu siin lahaa. nebi ibraahimna aabihii buu siin lahaa. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna adeerkii abaa-aalib buu siin lahaa. laakiin hidaayadaasi waa hidaayatu tawfiiq. ilaahay baa hayo, ilaahay baa mulkiya. oo nebigeenu calayhi salaatu wasalaam adeerkii abaa-aalib oo nebigeena soo gacan hayay oo soo koriyey, oo korsiinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qeyb weyn ku lahaa, markuu bukooday ee xanuunku u riday ayuu nebigu ziyaarto uu u galay. waxaa uga sii horreeyey oo la joogay markaa abujahl calayhi lacna. deedna markaabuu nebigu dhinac buu ka fadhiisto wuxuu ku yidhi: yaa cammi, qul laa ilaaha ila allah uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama. adeer waxaad ii tidhaahdaa hal mar keliya aniga imaqashii, oo waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah dheh, maalinka qiyaamahan aniguna maaragtaana kuu dacwin doonaaye. oo ilaahay casa wajalla hortiisa ayaan ka marag furi doonaa inaad adduunka dusheeda kelmadda aada ku soo tidhi. leanna nebigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis kale waa kii nebigu lahaa: malag baa ii yimid oo igu yidhi laba mid kala dooro ayaa ilaahay ku leeyahay, inay ummaddaadu kala badh ay jannada gasho iyo in shafaacadda lagu siiyo. deedna nebigu waa kii lahaa: shafaacadda ayaan qaatay, oo shafaacaddeedu waxay gaadhi doontaa qof allii qofka adduunka dusheeda kusoo ashahaatee laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah sala allahu calayhi wasalam ee islaamnimada soo galay waxaan u helayaa buu nebigu leeyahay qiil aan qiyaamaha ugu dacwin karo.
تابو مركا نبيغو أديرك أبو طالب كلها كلمة أنيقا هل مركلي مقشي مالك قيامها كو شفاعة قادي دوناي لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أديرك وحا أكفر يا أبو جهل عليه اللعنة فرعون هذه الأمة أي مركا كويري أبا طالبو مدينتي آباياشا أذكر حشي من لدي عبد المطلب انتو تكلا حتماد محمد ما انت وركيس أدقاد ليسا لأن مركاسو إسكا آموسي أبو طالب ها إيا ما يمنا مولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هدنا أوسوجي ديو وحكويري كلمة نحاج لك بها عند الله يوم القيامة هل مر أدر أنيك كلمة دائما غشي ما لك قيامها كو شفاعة قادة هذا الكي قدام بيسي أبا طالب وكوها لوحوها إنو يلادو على ملة عبد المطلب أن قل إنتين محمد وأنيك إسكا كيدا لأن نفتي ركض علي لبدا إنو إسوغ النبي إلا أنتو أي كدادان إسوغ النبي وكاكعي هالكاس محايا لأديركي وجعل نبي كرسينتيسا يا ماركتانا إلالينتيسا يا رعايتيسا قيف حق لا يمرك أبو طالب وكسوقاتي خيرك نبي ولا جعله وهداية يا نحريست أيولا جعله لكن هداية نبي محمد ما هيو إلهي بقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين قال أدقو أجعل تمسو هذين سيدنا نبي قال لقولي وهداية التوفيق ذي وافجنت إلهي بإسكاله كأن دون أنك هديني نبا إلهي عز وجل كو حنون ينا أنك نغنبا إلهي نبي سوكويري مركا هداية داس إلهي بملكي عدك لما هيسو ودي النبي محمد هادو ملكي لها هداية دا بلال وحبشي هداية دا مهلانة أبا طالب وقريشي ونبي وهذين لها أبو لهب وقريشي ونبي أديركي ونبي وهذين لها هداية دا هدي أي عد ملكي ليسو إن ماركتاني دي النبي إبراهيم عليه السلام أبيه قال نمكم دنتين بل هداية كو ديغ لها يوسن لها بركة هداية إلهي بهاي عز وجل كو دوننا إلهي سقا حنونية كو دوننا إلهي تبارك وتعالى سقا بادية أولومية موسى بن عمران ونبي موسى عليه السلام وصدن سنة لقلك فرعون كو برباري أو كو كورينا إلهي أو حنونية وحو كدق نبي رسوله أولا يلي وليبا وكلم الله موسى تكليما ونبي كليا أدونك دوشيدا إلهي عز وجل هذا الكيسكو مغلبها نبي موسى عليه السلام نبي موسى وأقل كفرعون كبر باري كهنونيي الرسالة دا أدورت إنه نبي رسول أو نغضنا والله رب العالمين ويان وحاكلو هداية دا أنا نصيب أهل نجي لأورنجر السامري موسى بن ظفر بأساقنا لأورنجر ابن عباس وانك ريبن إسرائيل هاي ملك الجبريل سرديسي ملكك انتو كو أركي هدنا إلهي الرومين وايي رسولك الله صدرين الراعي وايينا كان هدي أي نغنس هداية إن قفو هديو أركتد جبريل وكهنون لها لماذا جبريل وملك إلهي تبارك وتعالى قامت يقوذ طاقتك أبو روسيي نيك ملك أركين إلهي هداية أمكمو ديقينه إلهي هداية وحو كو داقينيكي قريق فرعون كو برباري أي إلهي هداية كو قلديست مركا هنونك إلهي بحية إنك إلهي تبارك وتعالى وإنو نعمي وهنون بإلهي نسيي لبحث وقراك لغو شيء ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ولبقي سوء عجيبة في سورة التحريم بكتها لأواخر كده ولبقي سوء عبر قاد الشله أول ربعين كو عبر قادتد أود إسلام ماذا هداية إلهي كو ديقو كسيي أدو أعنو ويديسن با إلهي قف مسلم إلهي وكادقه وأن النعمة إلهي تبارك وتعالى أنقوم هذنا أن قدرنا ولا بحث لابد من النبي بكوهس نولايين مدوى زوجة نوح عليه السلام مدوى زوجة لوط عليه السلام لابد النبي حاسس كودينا إلهي هداية الباب دي وكحدي قال لما أي كل نولايين يكو قال لما لقرسنا يا أي هوستا قال لما كو قرسنا ينو نبيذن وخائمين
وين خيانيين نارتا كواريا ونريبا إلهي وكوا نارتا كواريي أيات معوغتهين نارتا لقلبا كوا كنريبا إلهي هل كان ليلي طاغية فرعون وقرن إنسان وقرآنك لقا ورمي لحية لما تنجز وقرآنك إلهي كنت الله أيا نبي موسى عليه السلام يا فرعون وحيد أحمر المسوع العليي فرعون أو كبر كيسي قوقيس إلهي قرآنك ونوغا ورمي فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى نكدتك انتو ويرو فقالها سوجوجي كويري ربكي كوريي سري وعنيقا أقل كننكاسي وكده نولي هاي قابدي كنو لين إلهي عز وجل هداية إلهي كوغل دايستي وإلهي إسلام نمضو قلبي كده كشرحي واتكدو عيساني سائله ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة إلهو أنيقا قولي أكتادا يقد اسمي كنتين أكتادا حتى ما قالت أنبياء أكتودا يقد اسمي ونانا وحيتلي إلهو حرب جنة إناد أكتادا أقل أنيقا يقد استا وكي النبي يقولها عليه الصلاة والسلام إذا سألتموه فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تتفجر أنهار الجنة وفوقها عرش الرحمن هذا إلهي ويدي سنيسان ومر بإلهي أدبر يسام النبي عليه الصلاة والسلام جنة فردوس الليلة إلهي ويديستا محايا لجنويك أيضا يا أغسر ريسا أيضا أنا أقول دحيسو وبرتماي كنت وصنتحي عرش الرحمن كأيا سقف كذا وبيالك الجنة مرة أودنا أيضا كبل أمانة كبر قمام النبي يقولي قبل إلهي وحي ويديستي ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة تربت في بيت فرعون وعاشت في بيت فرعون ورأت طغيان فرعون كبير كيف فرعون بأسو جدي أركيسي مجتمع يكون أحبر باردوا مجتمع نيكا هايست أولي أنيقا أيا ربي ما علمت لكم من إله غيري إله أنيقا أنا هينو كلا هي ونيوغا هي مجرتي أنيقا إلهي عبود الشخص الصدالة قابل قريقا نينكا ودقينها كبر بارتي إلهي عز وجل قلبي إذا وحو كشر حي إلهي جريتاكي سلوي هاي حق نبي موسى عليه السلام رسالتي سو حق إني تهيب قلبي إذا لو شرحي وعين كنت عيسان إساء إلى هاي ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة إلهو أنيق وحنك ويدي سنيا أكساد قولي إلهو إيقدس ونجيني من فرعون وعمله فرعون إلهو إيقفوقي عمل كيسان إلهو إيقدره قال كا إلهو أنيق إيقدره قال هذا أعمال شودن إلهو إيقدره قال كو تأثيرين وكو سامين مجتمع ويسا ساميان هذا المجتمع مسلم آل هايستو وحكا لها كو بدلين وقو إسلامي ماذا كو خير بلن مجتمع مسلم كي أشهادنيا ولو دين تودو هنقوت الدين ضعيفة هنقوته لكن قال إنا تقول نحن ولاته مسلم قد كو أقنولاته هبا كو أقاجوتي دي هبا كو أقرفادي دي مسلم كي أشهادنيا مرنا قال لما أنا لو قبغينينو قالوبو إنا تقول أقنولاته أياكو خير بلن لذلك قبضها وحي لا هي فرعون كليه يقفوقه مالا وحي لا هي عمل كيسن إلهه يقفوقه ونجني من القوم الظالمين قوم كاسنا والظالمين إلهه إياك يقدر بيتي إلهي تبارك وتعالى وقادر على كل شيء وصود يل وإلهي أسماء إلهي وحاكم الهادي هنونية وإلهي عز وجل إله عز وجل موسى السامري إلهي هداية ومقدرين وانك جبريل أركي موسى بن عمران وقصر فرعون كورينا إلهي عز وجل أوهن اليوم مؤمن نبي رسول وكليم الله بلغدي لبدي هوين النبي نوح نبي لوط أي كلاقمين اللي النبي هوستود وكبر بارتينا الباب هداية الله مفرين تي قصر فرعون كبر بارتينا آسية بنت مزاحم ولما وحى نبي قالوا بالشاريي إلي نقوليسو حاسسك نبي محمد جنة الله قدس دونك من نقوليسو إلهي هداية إساقا بحية إنك إلهي وإنو نعمي كان خاصة أفضل اللغة الصومالية يكوها الله فهم يكوها الله سيقار إلهي وحمدنه مسلمين بإلهين يا بياشين مسلم ولا لهين مسلم أو ياشين مسلم أجدادين مسلم عدة كسوجة دوا مسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعمتا خاصة إنك إنو خاصك والله إياكم مين هلين صحابة رسولك سيرادو مركي الله نغضي إساقي هدو مسلم نغضو أبيه قال لماذا كسرنا خالد بن سعيد با كمدا صحابي قالوا نجري الله عليك النغضي خالد بن سعيد وحكومة نامي أسبابته وكو إسلامي وحا كمدا هاي إساقو أو وحكومة نام أبيه والنار كو دحجرا وإنك يسر سو قابل وسو جيديا والنار تكو سو توريا والنبي محمد عليه الصلاة والسلام نهلقا قنتك أو كهيو دانا مركاسا ودادي كاكعي بولي أرقاقح أبو بكر الصديق بانو شاقو كويري أبو بكر ومحمد أديق الرميو الراعي بل منام كان أركي إيه عبر بانكويري بولي مركا إيه عبر رياضة وناكسنة كل ريوتا دادك خيرك أتكتو ميسا الله شاقا ووحي كوكو عبران لكن وحالينا الحلم كهواويقا يعني حرنت بلالا لما شاقو وصلنا دي نبينا عليه الصلاة والسلام دانا صحابي قاسوا أردوح وشاقي أبو بكر الصديق باقولي منام كآد أركتي وحق أبها النار بكود عياي وقال لماذا أكجرو كفرق يا شركة قابو كود من يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام دين تنوي نولي مدوا الدين نقوله نار تهكبت بعداني عنيك يصر عمو نبي قلنا ليه وأنا آخذهم بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي أنا قلنا كنت قاسان نقاها يا هلكا دحركا أيان نهايا أبو نبي عليه الصلاة والسلام ساد نارتا وقود عمان نقا حجينيا إنو كنا وادسكا كي كندنا سانو نارتا تكوها من يساب رسولكم يدي دانا ريادي مركو الشيء يقول والله منام كالا قلت سوى حق أبها نار بو كود بين دونا نار بو نكود عدونا قال لي كود من يا أدينا النبي محمد وكو قرمنا ياي هم كو جايا كالا يسكوس الإسلام والنبي محمد كود يقول راع وهاجا وصوك حيي دانا مركب أبو النبي أوكين عليه الصلاة والسلام خالد بن سعيد مركب النبي هورتي سوكو إسلامي أبيه با مغلى مركب سعيد بن العاص با مغلي إن كيسي ودينة محمد وقالي ومكة للجوغا ذاتك مسلمين توافركو ترس ويام ومالي قفكي مسلمي إسلامي ماذا إلهي كو قال ليستو مركب ولا عذاب يا ولا ربيا ولا ليه بودلو لصوم قبطة ولا قبطي أفرت أدين بالغا حدي بيه بالغا دابي باتي بالو ديدي وعلقو قصبيا إنو قالوا بور الدوبو ولكن يسقوا حوليا مي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دانا مركا وكلي وايه وأركنين كلي إنو دين الإسلام كأونا كنغنين أيو يحركها كسيدايا مقالة مكا هايسكا قالو وجيكي سهيقا قريو مالان جوغا يونس سو جوغسن بعد نسيني مينا بينا ورابين مينو هرادي أونيا قاجها ودينتي مركي سدا آبيه وكويري أيو لآبا حداد أدقو قوت كاد هايستي أدقا من عستي أنيق إلهي ما يقودين يبو كيد الله مسلم جديدة وشلي إسلامي أيا مركب قلبي سيقينتو أي كل بعيسى أو كله حنقا جودو أباهي هنوايو ولا لهي هنوايو قرابة إذا هنوايو وحي دباتي سوغادو هاي سوغادو لكن مرة دار مسلم عنو أنا هاي إسلام ماذا وانكو قنعسنا هاي دين الإسلام كان يقول فلان ويدقق دون تويان ها دين الإسلام كان يقول فلان أيها المسلم هايجن هنقرقة nin muslima oo dadkeena ayaa maalin maqlay inuu dhoofayo wadannada reer galbeedka marka ayuu rabaa inuu ubadkii reerkooda u qaado markaasaan salaamnay oo salaamu calaykum ma sha Allah bal warano waxa igu maqal inaad dhoofaysid markaasuu haa waan dhoofayaa waxa ka tagay dhulkaas maxaa jira wuxuu qaaradan Afrika leeyahay oo la isku halayn karo buuli nabadgelyo ma taalo tacliin ma taalo caafimaad ma yaalo shaqo ma taalo system ma shaqeeyo kolbaniga meesha haystoon baa dadka ku jooga marka wadannada horumaray ee nabadgelyadu ay taalo ee dhakhtarka iyo tacliinta fiican leh ayaan ciyaalka mustaqbalkooda la raadsanayaa buu yidhi u fiirso Khalid ibn Sa'id eeg shalu islaamay abihi baa ku leh baadiye bii ku siimayo markaasuu u jawaab u leeyahay carabka ma waxa jawaabaya waa caqiidada ayaa jawaabaysa iimaanka qalbigiisa ku jira jawaabayo kule aba hadad adigu baadkiye biyahaaga adiga mancisatay aniga ilaahay baa iqoodanayo siinay buu ku yiri Khalid ibn Sa'id uu yimid nabigu yimid alayhi salatu wasalaam wa markuu nabigu jooga daartii arqam ibn al-arqam halka uu nabigu xataa masaajidka xaramka looma ogolayn
halkaabuu nebigu saxaabadiisa qur'aanka makiga maka ku soo degay ee aayaadka qur'aaniga makiga iimaaniyaadkii aakhirada ka warramaya iyo qisasul anbiyaa iyo walumam asaabiqa ayuu markaa nebigu dushooda ku akhriyaa iimaankooda ayaa markaa dhismaya yaqiintoodii caqiidadooda ayaa la dhisayaa u tarbiyadaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam deedna maalin maalmaha ka mid a wuxuu maqlay khaalid aabbaha waa sakaraad deedna markaa buu soo socday aabbihii oo sakaraada buu dul yimid odaygii dhalay markaa buu dul joogsaday odaygii baa sidaa u eegay ma khaalid baa haa aabba waa khaalid weeyaan diintii maxamed ma ka soo noqotay markaasuu yidhi may aabba may kama soo noqon kamana soo noqonayo mid iga qor buu ka yidhi mid iga qor haddii xanuunka aan ka kaca buu yidhi maanta ilaaha maxamed maka lagu caabudi maayo buu ku yidhi khaalid ibnu saciid uu maqlaya hadalka gaalnimadu aabbihii uu ku manaamay inuu naar ku dhacayo qiblada intuu u jeestay ayuu yidhi samada intuu eegu gacmaha cirka u taagay buu yidhi ilaahow aabbahay mowqifkiisa weli ma bedelina halkaasoo ma taagno ilaahow xanuunka ha ka kicin ilaahu ku qaad buu yidhi isagana u habaaray xanuunka inuuba ka kicinba ilaahu ku qaad ilaahay waa ku qaaday xanuunkii gaalnimadiisii jahannamuu la tegay walciyaadu billaah waxaan ka wadaa saxaabada rasuulka radia allahu canhum islaamnimada hadduu saxaabigu muslim yahay isaguna maaragtaan aabbihii iyo hooyadii iyo dadkiisu gaalnimada ku sugnaayeen abaa hurayra radia allahu canhu markuu islaamay hooyadii oo da-ah gaalnimada weli baaqi ay ku sii tahay markaasuu abaa hurayra nebiga u yimaadaa calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebiga cilmiga ka bartaa haddana hooyadiibuu u tagaa uu u soo khidmeeyaa mar ali markuu u tagana dacwaddu u bandhigaayo risaaladdu u bandhigaa markaabay iska diidaayo tiraahdaa ila dhaaf diintaada anu ma rabi diintaadee maalin maalmaha ka mid a abaa hurayra allaha raalli ka noqdee isagoo lilmadu ay ka yaacaysa buu nebiga u soo galay calayhi salaatu wasalaam markaa buu nebigu ku yidhi yaa abaa hurayra waa maxay oohintan maanta maxaa koolad la ooyeysaa ii sheeg wuxuu yidhi yaa rasuul allah hooyaday waa mushrikad oo gaalnimadiibay weli iyo shirkigiibay ku sugan tahay mar kastana waan u bandhigaa risaaladda iyo tawxiidka waan u bandhigaa way idiidi jirtay laakiin maanta hadal aan u adkaysan waaye bay igu tidhi buu yidhi oo hadalkaa waa maxay hadalkaa waliba adigay kaa tidhi adigay kula jeeday hadal xun oo adiga aanan kuu qalmaynin ayay nebi allow adiga kugu tilmaamtay nebi baariya ayaa tahay oo barakaysane u ducee hooyaday ilaahay uu iisoo hadeeyo markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu gacmaha cirka u taago wuxuu yidhi allaahumma hdi umma abi hurayrata abaa hurayrahan hooyadii ilaahu soo hadee abaa hurayre hooyadii ilaahu soo hadee deedna abaa hurayra radia allahu canhu wuxuu yidhi anuu ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam bishaaraysan in la ii aqbalay ayaan u radisqaaday buu base sii daayey deedna markaan shanqadhaydii markay maqashay ayay hadasho waxay tidhi ha ii soo gelina dibadda joog waan istaagay waxaan maqlay markaa biyahay ku maydhanaysay shanqadhoodii sawdkii markaasaan idhi way maydhanaysaa maasha allah markaabay tidhi ii keen maradii baan u dhiibay soo gal shahaadateynka ii qabo bay ku tiri waan islaamayaaye u laqinay isagoo ooyaya buu nebigu u yimid sal alla alay wasalam ooyintan iminka waa farxad maxaa dhacay abaa hurayrow yaa rasuul allah ducadaadi ilaahay waa aqbalayo hooyaday way soo islaamtay buu yidhi sidaasay saxaabadu ahaayeen laakiin innaka maanta ilaahay waa inoo nicmeeyey haddaan abtirsanno 20ka oday 30ka oday aad ku abtirsanaysid hal oday oo gaala laga heli maayo jadka jad waxaa dadkan ka soo wada muslimiin oo wada shahaadanayay oo qaarkood innagay naga tawxiid ficinaayeen oo naga diin ficinaayeen oo naga dhaqan ficinaayeen oo naga dadnimo ficinaayeen oo ducadooda ilaahay aqbalayay tabaaraka wa tacaala oo waxaa laga yaabaa inaad ka soo jeedid dad xalaal mirada oo dhaqan wanaagsan leh nin culamada muslimiinta ka mid a oo inuu yahay baan u malaynayaa masri ayaa tawaasul alijtimaacigan baan ka daawaday maalin lajnatu taxkiim wadannada scandinavia waddan ka mid ah ayuu musaabaqatu alqur'aan buu markaa ka qaadayey waxaa dhacday markaa wuxuu yidhi
waxaan idhi Sweden ayaa ka socda yar Soomaaliya soo kacay buuli waayaa Australia ayaa ka socda oo quraanka musaabaqada uga qayb galaya waa Soomaali buuli America ayaa ka socda waa Soomaali London ayaa ka socda UK waa Soomaali wuxuu yidhi ma garan kara buuli xidhiidh baa jiray buuli xidhiidh waa hadalkan ku ta'athuray aad ay maartaan ay taabtay wuxuu yidhi maaha ininka buuli laga yaaba aabbayaashiin dadkaad ka soo jeedaan laga yaabaa inay jirto sir iyo ka ilaahay u dhaxaysay waa waxa ilaahay quraanka inoogu ilaalsanaya weeyaan bifadli illaahi caza wajalla wa bikaramihi meelo badan oo adduunka aan maray oo safaro dacwadeed u maray masaajid kuma tukado ilaa imaamka salaada tujinaya waa Soomaali qaariga salaada tujinaya waa Soomaali marka nicmada ilaahay nagu galadeystay nicmada alhidaaya nicmada aliimaan wal islaam nicmadaas marka aan qadarino oo ilaahay han ugu mahadino oo han ku shukrino oo nicmada dhulka ha dhigin ha dayicin meel kor u qaad waxa ugu qaalisan ilaahay adduunka dusheeda uu dadka u siiyo waa hidaayadii baan haysanaa marka nicmada ilaahayna siiyo waxaan u baahanahay inaan ilaashano oo ku camal falno oo ubadkeena barno oo inagu diinteena barano oo inagu diinteena ka shaqeyno waa saddexda diintu ay ku ilaalsanto waa saddexdaas al-ilmu wad-da'watu wal-amal al-ilmu wal-amal wad-da'watu ilayhima cilmiga ina diintaada barata waa fariidatun ala kulli muslimin wa muslima ina diinta aad taqaanana aad ku camal fasha waa qiyaamaha la isweydiin doonaa والقرآن حجة لك أو عليك قرآنك أي دينتا إلى هاي كسيي مالك قيامها أما حجوك كفر دونا أما أذيك قرآنك حجوك نغني دونا الصوم والقرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول القرآن منعته النوم في الليل فشفعني فيه ويقول الصوم ويقول الصيام منعته الطعام في النهار فشفعني فيه حديث معنيه سوها النبي وكيلها لبا قيامها وشفاعات قال يا لبو صومكنا وشفاعات قال قفكي صوم جري ووحو كورنيا يا ربي أدونك دوشيدي مالكي أيا شهودي سكربه إرجان هي إله إرجدا إي أقبل بورنيا إرجان وهاي قرآنكنا وحولي هاي هبينكي بوكي جرو يخرن جري إله شفاعات إرجان وهاي إرجدا إي أقبل بيسون إليها قرآنكي marka hadda diintan ku amal fasho maalka qiyaamaha diintu iyada ku shafaacad qaadi wad-da'watu ilayhima iyo in dadka muslimiinta barashada diinta loogu yeero salaada loogu yeero gabdhaha u yeeraan asturka loogu yeero dhaqanka wanaagsan loogu yeero haddaad adigu daaci noqonaad ummadda khayrka ugu yeedhin adigaa lagu yeedhin ad-da'watu ila Allah فريضة شرعية وضرورة بشرية وأنا من أسباب الهداية وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم نبي محمد عليه الصلاة والسلام بإلهي كلها داتك حق ربك أغوية حتى داتك حق ربك أغوية ليسد طريقي مستقيم كهنوك يبطن صارتها يبقى النبي الغوية دعوته مركز مدى خيرك أدقاسي ليسد ومن أسباب الهداية وأسباب تأكل جرن كريس النعمة إلهي كسي قدر كيكا مركا نعمة إلهي نسي إسلام ماذا هنكو شغلنا إلهينا هنقوم هنضمنا مالك لأنه هو تاكتاقني عز الدنيا والآخرة هذا دوت الدين تاضونك ابن عباس الله رالك نقضي السقي حبيبي وحولي عبادة إيه دين تاني خيرك إلهي نسي هدو قفو كد دالو وإلهي حرير في عنو الله يشو وعبادتي صلاتي سلقا أقبله شن فوائد بأدوك دوشيد إلهي قصية نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق حداد عبادة هذا طاعة هذا دين إلهي قصية نغنى كان أغطوط ونغنطو شنتا نعمضات بأدوك إلهي قدوسية شنتا نعمضات نور في القلب قلبك إلهي نور كو قلنا يا نور وضياء في الوجه وجهك يفتين باك بحا يا مر والبا قف بشاش وفرحات بدن بعد نقول إسا
وبلا استرس أيضا نقوليسا وقوة في البدن جلك أغنى إلهي قوة حوق بوغلينيا وسعة في الرزق أرزاق هذا إلهي وقوة سعنيا ومحبة في قلوب الخلق خلقنا جعيلا إلهي قلبي وذكو قلينيا شنتا نعمضون لغو مهل العق لغو مهل أقوتنا الدوية المادي ولغو ترحتقو لغو مهل قبيالد لغو مهل منصب ابن عباس مفسر القرآن حبر هذه الأمة أيقول شيء يا كله هذه إلهي أذيقا حجر كيني قد حي هجاجا شنتا نعمضون بعدونك إلهي كوصينا يا نور في القلب قلبك ونور نور كقلبك ومحي وإنها قلبك يا كفر مايا وإنها اللغو أركا خالقة يا مخلوقة فرق محا أدحيا أدويدا قابا يا آخرة واسعة بدل فرق محا أدحيا طاعة إلهي يا معصية فرق محا أدحيا أشياء يا ماتريالك يا صلاة يا عملك ونكسن دفر فرق محا أدحيا إسلام مدى يا قبيلة فرق محا أدحيا ونورك اللغو أركا ونور القلب ويا وضياء في الوجه وجهك افتين باك بحايا حسن البصري الله نحرسته عالم من علماء السلف هذه الأمة وتابعين أيو كملها وجهيس أسمر اللون من أبكي الناس وكلا أيو لها وجهيس افتين باك بحجري سؤال بالله ويديو اللغو يري وجهك افتين باك بحا محاد سميسان وشيك وحو يري ساعة لها دتك أي هردان أيا الإله لمنا جوذاب دانيو ساعده وقت السحر وبالأسحار هم يستغفرون وإلى خير مؤمنين علامات اللغو أماني وحا كمدا وقتك السحورتا ووقتك غفلته أي بلانتهي ووقتك الشيطان وقفك ودوشي سكويرالو هبين دير بعدو شادا هذا اسكجيف أيان كعاب ساعة لها بان كعاب دين إلهي من لمنا جودا مركاسا اللغو يري هذا مجلس كاغن مجالستك لو كدوين يحي ومحوكو كدوين يحي اللغو يري waxaan arkaynaa majliskaagan madaxda kula fadhiisanaysa awlaadii madaxdu ay dhaleen baa ku dhageysanaysa maalqabeennadii baa ku dhageysanaya sidee markaa ku dhacdaa lagu yidhi inay dadka shurafadu ay hadalkaaga iyo khayrkaaga jeclaadaan waan inii sheegayaa buritaana jawaab baan iga siinayaa waxay haysteen baan u daayey waxaan haystana waa u baahdeen buu ku yidhi waxay haystaan maxay haystaan madaxdu adduunyadii bay haystaan maalqabeennadu warqadee lacag ay haystaan madaxdu mansab bay haystaan maalqabeennadu lacag bay haystaan farahaan uga qaaday waan u daayey anu xagga ilaahay baan u jeestay xagga diintaan u jeestay cilmiga ilaahay i baray ayaan ummadda intoon meel u fadhiistay shaqadaydu waxa weeyaan dadka iyo ilaahay baan isku xidhaa maadaamaan ilaahay ku kalsoonahay waxaan haystay u baahden markaa iyakii waayo ninka muslimka nicmadda uu haysto waa nicmo dadkao dhan u baahan yihiin بل داد مسلمين ما دوحة كذا دعسن داد مسلمين وحة كذا دعسن ما تقنن قال هذا لقام مارنكهم ورمركو قالوا بهنا وقنتو قالوا بهنا سيستم كو قالوا بهنا لا أنتم لمن نورانكم وحنا دوجين وارون أقون هذا إليهين أقنتو ذاك الصبر لقوم ديدنو سيستم في عادات كو أركت يجوا كنا مايا وعي دين الإسلام كان وحبا ودي بينين كسو قادو واي نبينا نوشيغا عليه الصلاة والسلام نبينا صحابة كويري والأمورتنا أدوية إنك يقول قوم بضمو نبيكو كويري لكن وحنا أوغين أديكو أولك أو كامغان قالوا سبب تادي كون نوليهيني أديكو إياك سببتو دكو من نولي مسلم كالسبب تيسي أدوية كو سعوتا مسلم كشهادنيا والروح دي عالمك بلادك الروح دي سهدي كبحرو جيركني وميد ولا اسكاسا روح العالم كل سعود ما تغانا والاسلام ان الدين عند الله الاسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله في صحيح مسلم وحو نبي كل شيء ضبيني كلمه دوت من قبل الشاب ضبيل قبول لأن مركاسا قف كستا مؤمنة أما مسقال ذرة وحا إشو أركت وحا وغير وخيرة أما إيمان قف قلبيسا وكجرب ونبقى يلي ضبيشا سينتي قشو سنك يأفك انتي كقشو أيو دي من يابو نبقى يلي حتى متكين
hadduu buur caloosheeda uu ka geli lahaa dabaysha intay ka daba gasho ayay ruuxda ka soo qaban buu nebigu yidhi qof mu'mina adduunka ku hadhi maayo dabayshaasaa mu'miniinta adduunyada ka wada rafacaysa falaa yabqaa fi lardi ilaa shiraaru lkhalqi baa nebigu yidhi dadka adduunyada ugu shar badan ayaa caalamka ku soo hadhi doona kuwaasoo wanaaggana aan isfaraynin xumahana aan iska reebaynin arsaaqadana dhinac walba laga dhigay ibliis baa isku soo sawiri doona oo odhan doona aniga ma idi ajiibaysaan oo maxaadna amraysaa hanku ajiibnaa bay ku odhanayaan waxa uu odhan doonaa asnaamta dib u caabuda kuwaasoo asnaamta caabudaya buu nebigu yidhi oo ilaahay kayrkii caabudaya oo munkarkuna meel walba uu yaallo ayaa saacadda qiyaamada ku dhici doontaa buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalim saa daraaddeed walaalayaal muslim ogow caalamkan inaku inagu taagan yahay dad kaleka kuma taagno adiga ruuxdii caalamka maxaa markaa lagaa rabaa inaad adigu islaamnimadaada muujisaa lagaa rabaa in islaamnimadu kaa noqon sheegasho ay kaa noqoto maaragtaane ku dhaqan waayo dhaqankaagaa ummaddu arkaysaa waddankan aad ku nooshihiin ininku khaasatan dadkiina dhulkan jooga iyo dadka qurbaha jooga ee wacdigaa dhegaysanayaba salaadaad tukanaysa dadka gaaladu ma arkaan soonka aad soomaysana ma arkaan xashkaad gudanaysana ma arkaan oo maka intaanan la gelin waxaaba ku qoran maaragtaane mamnuuc qof aan muslim hayn maba gali karaba zakadaad dhiibaysana gaaladu nasiibba kuma leh 8 sinfi ee zakada la siinayo waa dadka muslimiinta loogu talagalay marka haddii salaadaadii gaaladu aynan arkayn soonkaagiina uunan ay arkaynin xashkaagiina aynan arkaynin dadka gaaladu markaa maxay arkayaan dhaqankaaga markaa arkayaan seed u dhaqmaysaa islaamnimada ilaahay ku siiyey ee uu kugu galladaystay ma kaa muuqataa adiga mise magacumay kaa tahay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam maka markuu soo galay dhinac walba ciidan buu ka soo gashay 4,000 ayaa lagu qiyaasaa marka dadka magaalada maka ku noolaa quraysh lugihii nabigeenna husuuqsadeen markaa buu nabigu ku yidhi maadaa tadunnuuna annii faacilun bikum maxaad maanta iga malaynaysaa inaan igu samayn buu nebigu yidhi quraysh waxay nebiga dhib u geysteen la ogyahayna waa qoran tahay bilaal bay dhibeen cumar bay dhibeen abubakar bay dhibeen oo nebi maxamed bay dhibeen ma dheerayn 6 sano ka hor 8 sano ka hor bay ahayd qiyaastii maxaad u malaynaysaan maanta inaan igu samayn maxaad iga filanaysaan hal mar keliya inta sidaa u eegeen bay ku yidhaahdeen waxaan kaa malaynaynaa khayr waxaan u aragnaa inaad tahay walaalkaygii wanaagsanaa uu noo dhalay markaa buu nebigu ku yidhi aniguna maanta waxaan istaagayaa mowqif cajiiba mowqifkee halkii nebi yuusuf walaalihii oo qaxootiya markay u yimaadeen isagoo wasiirkii maaliyadda ee masrax ayuu ku yidhi laa tathriiba calaykum alyawma yakfiru allaahu lakum wa huwa arxamu araaximiin maanta wax laynaga aargoosanayaa ma jirto ilaahay dembigiina ha dhaafo kuwa naxariista ka ugu naxariis badan waa ilaahay sidii nebi yuusuf walaalihii uula dhaqmay ayaan aniguna maanta iniila dhaqmee aqaladiina gala buu nebigu yihi aamin baa tiri wala nabadgeliya buu rasuulku ku yidhi wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi may noqon aqalada kumay noqon reer intay u baxeen ayay nebiga saf u soo galeen iyagoo waa shahaadanaya yaa allah waa maalinta uu khaalid yidhi maanta waa maalintii hilibka waa maalintii quraysh la googoynayey ansaartaasay yidhahdeen ansaar markaa buu nebigu may cabbaas u sheega ansaar maanta maalintii dadka la gowracayo la laynaya maaha ku dhammaanta waa maalintii naxariista wamaa arsalna naxariistaasaan u baahanahay maanta islaamnimadu inay naga noqoto dhaqan
ujeeddo kale maaha waxa la noogu yeedhay nimanka akhyaarta ee nagu dadaalay ee kulanka inii qabtay ee culimmadana meelo badan uga yeedhay ku soo casuumay inay nila hadlaan wallaahi ujeeddo kale ma leh waxay leeyihiin keliya siday diintani ay nolosheena u timaadaan bas marka waxaan nagula dardaarmayaa nafteedana kula dardaarmayaa inaan dadaalkaas ziyaadino ducada badino diintu ay naga noqoto maaragtaan ku dhaqan guryaheena ubadkeena gabdhaheena diinta ku ababino insha Allah dhahada hada wabillahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum.